muuqaalkan waxaan rabaa inuu noqdo muuqaalkii ugu dambeeyay ee aan YouTube ka soo dhigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. asxaabta ku xiran Real You waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada muuqaal cusub. marka hore waxaan idin leeyahay aad iyo aad mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad ii garab taagantihiin mar walba, sida wanaagsan ee aad commenti ugu soo bixisaan, welibana aad like u dhahdaan muuqaaladeena, kadibna asxaabtiina ugu share gareysaan. Okay, sida arkaysaan baa caawo jawigii xalay mise shalay mise maanta muuqaalkii ugu dambeeyay aan soo dhigay uu ka duwan yahay. xogaha jawiga ayaa xogaa qasan, macnaha markii jawiga qasan aan ku leeyahay waxyaabo aanan jeclaysanaynin, waxyaabo aanan wanaagsaneyn, waxyaabo aanan fiicneen oo aniga xaggayga u fiicneen idinkan aan idin fiicneen ayaa jiro. horta marka hore soo dhawaada, ma rabo inaan madax xanuun iyo daal iyo buuq iyo qayli idinku furo. markaas mar walba waxaan jeclahay idinku faraxsan inaan muuqaaladeeda farxad ku daawataan, laakiin muuqaalkani caawa waa muuqaal idinka oo dhan aad dhihi doontaan maya. waa ogahay dad baa dhihi doona okay waan kugu raacsanahay, dad baa dhihi doona ma kugu raacsanin maxaa jira oo sababta aad soo sameynaysid maxaa, dad baa dhihi doona. okay, marka waxaan rabaa hal balan iga qaado, balanta soo ah muuqaalkan ilaa dhamaadka inaad dhamaysataa. markaad dhamaysto kadib asxaabtaada u share gareeya. okay, sida marka hore muuqaalkii ugu dambeysay aan idinku soo sheegayba waxaan soo dhigay qoraalna aan soo raaciyay, aan soo dhigay barta macnaha YouTube-ka qaybta postiga la soo dhigay ama community-ga saa u taqaanid, oo aan ku eri su'aalo isoo weydiiya. su'aalahaasna ha ka bataan 15 su'aalood. ilaa hadda san jeclahay 5 su'aalood ayaan gacanta ku hayaa. 5 su'aal muuqaalkiisa mise muuqaalkeeda mise muuqaalkii aan ka sameyn doonaba horta dhinacaad iga dhig ka hor intaan muuqaalkaas gaarin. balantan ay ahayd 10 su'aal ilaa 15 su'aal ha ka bataan su'aalahaasi, waayo 5 su'aal aniga jawaab yar macnaha muuqaal yar soo maraba inaan soo sameeyo. muuqaal waxaan rabaa ku dhawaad 20 daqiiqo qaadanaya inaan idin soo sameeyo, idinkana aad wax walbo aniga aan ahay mise aad iga rabtaan inaan idinkaga jawaabo aad meesheeda jawaabteeda ku heshaan. okay, laakiin horta intaan xagga la gaarin muuqaalkani waxaan rabaa in uu noqdo muuqaalkii ugu dambeeyay Real You aad ku aragtaan asagoo inta soo fadhiistay stuudiyahaasna fadhiyo, ookiyaalahana wato ya kameradana hor fadhiya oo idinla hadlaya mise reaction idin siinaya mise idin sheekeynaya misena macnaha idin salaamaya oo idin dhahaya kulanti wacan, soo dhawaada, subscribe, like, share, comment idin dhahaya. waxaan rabaa inaan idin dhaho caawo muuqaalkani hadduu kusoo gaaro maalin, hadduu kusoo gaaro habeen, xilliga kusoo gaaraba muuqaalkani waxaan rabaa inuu noqdo muuqaalkii ugu dambeeyay ee aan YouTube ka soo dhigo. dad baa dhihi doona waxaan waa prank mise dad baa dhihi doona waxaan kaftan waa wada ciyaar, laakiin qof walba caqabad badan. horta adduunkani waxaan caqabad lahayn ma jirto, wax walba caqabad ay leeyihiin, wax walbana madax xanuun iyo daal iyo rafaad ay leeyihiin. horaa Soomaali u tali waxaana loo rafaadin dheefteeda lama helo. laakiin rafaadka ayaa kala ah, rafaadka ayaa noocyo badan kala leh. mid waxaa jira rafaad macnaha adiga aad u rafaadaysid si aad taageero ku heshid, kaas inta dhig, waayo taageero waa la kasbadaa, bulsho badanaa la bartaa, weji fiicana lala soo fariistaa, waxyaabo waxyaabo qosol ah, waxyaabo fari ah, waxyaabo adiga unique ah mise cusub oo weli aan kala loo arkin aa la soo bandhiga si aad taageero ku heshid. taas inta iga dhig. laakiin caqabada kale oo taagan waxay tahay markii qof walba uu ku leeyahay hore u soco lagu saabtuma uu leeyahay okay dadaalkan waa muujisay, laakiin dadaalka weyn macnaha soo muujiyo markii lagu leeyahay ayadana waa gooni. laakiin mar haddii lagu leeyahay ka waran kamerada soo fadhiisataa adiga la isla hadlo macnaha YouTube-ka asxaab kale kuma arno, kaligaa soo fadhiisto like wax faa'iido leh ma soo dhigtid, 3 maalin 4 maalin maqlanaysa hal mar soo fadhiisanaysa waxaan ku tirtiriyay waa riyadan waxba ma gaaraysid. macnaha waxa aad sameynayso hore loo sameeyay, dad hore u sameeyay iska dhaaftada ku dhahay. horta adduunka 10 qof 20 qof 30 qof oo waxaad arkaysaa kuwan ay ku taageersan yihiin mise 80% ku taageersan. marka 90% mise 80% kuwa ku taageersanaa jira iyo 20% kuwa aan ku taageersanan. laakiin mar haddii ay kugu bataan kuwa aan ku taageersanan oo mar walba ku dhahaya niyow
waxaan aad sameynaysid waxa aad meel ku gaaraysid ma ahane waa iska dhaaftid ya waxaan waxaad wax faa'iido kuma lahan meel kuma gaaraysid laguma baranayo bulsho ma ku sameynaysid waxaad ku qabsanaysid oo hadda aan aragno isbedel ah malahan marka iska dhaafdo baa ku dhahaya dad baa waxay ku dhahayaan awalba meesha waxba kuma hayninay haddaad baxaysid nin hore u bax dad baa waxaa arkaysaa muuqaalka adiga hataa haddii ay muuqaalka ka heli waayeen comment iska dhaaf dislike ku dhufanaya okay ba dhib ma lahan dislike naftinkeeda waa dhiirigelin mise qof ku dhahaya muuqaalkaaga kama helini muuqaalka ku xiga bal waxaa ka bedel ciladaas hadduu qaybta editing yahay haddii qaybta colorka iyo editing macnaha iftiinka nalka uu yahay haddii ay tahay macnaha hadal qalad ah u tiri sax camal ha waa la qaadan karaa laakiin horta qofka bini'aadanka shakhsiyan marka la yiraahdo waxyaabo qaar u dul qaadan karna ay jirto laga yaabo markii hadallada kusoo bataan inuu waxaa jira hadal marba kugu soo laabanaya kadib aad go-aan cad ka qaadanaysid oo go-aan degdeg ah iyadoo go-aan degdeg ah markuu qofka ka qaadanayo aad ay u culus tahay si looga soo celiyo like waa dhib badan tahay saa u soo celisid like kaba soo qaad waxaa kugu soo laabanaya mar kasta waxaanad sameynaysid wax faa'iidaa ma lahane iska dhaaf niyo maxaad isu daalinaysaa maxaad waqti u dhuminaysaa like maxaad isu daalinaysaa oo waxaan aad waqti u gelinaysaa u dhididaysaa u rafaadaysaa waayo waxa aad sameynaysid hore loo sameeyey cid dadkii sameeyey macnaha dad baa sameeyey oo faa'iido ku helay adiga laakiin wadadii mar hore la maray haddaad maanta martid waxba kuwa mataraysa dad baa ku dhahaya marka haddii su-aashaasi mar kugu soo laalaabanayso macnaha marna lagu leeyahay niyo feri adiga adaabta la hadlaya oo meesha soo fadhiisanaya wax fiican noo keen mise iska dhaaf meesha iska tag horta dhibkeeda leedahay anigana inkastoo aanan idiin sheegin qof shaqeynaya qof aad u mashquul badan xilliga uu waqti hela oo wax soo duubana inta soo fadhiista ayaan wax walba macnaha wixii idinka inka dambeeyay mise waxaan weli idin soo gaarin ayaan idin sheegaa inkastoo programyo badan aan diyaarsaday oo aas lahaa programyadaas badan vlogyo badan iyo barnaamijyo qurux badan aad diyaarisid oo aad asxaabtaada bal at least adigoo banaanka joogo ha ku arkaan waa adigoo fadhiya inuu qofka markuu fadhiyo wuxuu yahay mataqaanid inuu curyaan yahay inuu jiis yahay inuu gaaban yahay cid ku taqaana malaha waayo bulshadaada waa inay ku barataa marka waxaan rabaa inaan banaanka u baxno oo vlogyo badan qurux badan kaali arag ah wadooyin qurux badan aan soo bandhigno muuqaalo kaali arag ah inkastoo xogaha arrimo badan ee buuqbuuqyo iyo arrimadi oo isku dabarid waa inaan qofka uu budget yar haystaa isdiyaariyaa asagoo diyaarsan banaanka aadi karaa mise asagoo qalab ahaan qalbiyan mise diyaarsan oo tiim ahaan u diyaarsan waa inuu baxaa marka horta aan hadal badan ku daalin hadii ugu dambeyntii markii arrimo badan iyo hadallo badan iyo daal iyo buuq iyo khayli iyo orod iyo asxaab badan ay soo dhahaniyo waxaan iska dhaaf macnaha mustaqbal ahaanna kuma fiicno qof adoo waxaan waa wax aalada way halaabi karaan meel kuma gaaraysid waqti kaa dhuminayaan wax faa'iidahana kuma keenayaan shaqana kuma helaysid qof ku dhahaya malaha youtuber aad ahayd bal kaala shaqadan qabo cid ku dhahaysa malahan marka sidaa darteed wuxuu yidhi qofkaas mise asxaabtaas comment ka soo go'day ah warniyo waxaan iska dhaaf adigana waxaad inta kusoo rafaayaysa haddii intaas oo comment aa ka helaysid mise intaas oo jawaab aa ka helaysid danta waxay qalbi qasbaysaa mise danta waxay kalifaysaa in aad iska dhaaftid like inaad dhahdid warniyo saamba haddee tahay oo waxaan oo hadal ay waxaan oo comment ay kasoo baxayaan balniyo ma iska dhaafo oo at least aan tijaabiyo waxyaabo kale mise barnaamijyo kale aan tijaabiyo haddii barnaamijyo kale aadan haynin waqti u haynin at least aad dhaysid bal ma iska dhaaftid oo shaqo kale ma iska raasatid waayo waxaan haddiise shaqo ku ahaan oo at least waxaa laba shay loo soo galaa youtube sidiisaba qofka inuu qarash ku helo iyo caanimo mise caanimo bas ku helo oo lagu yaqaano oo iska socdo qarash ku helin oo intaas qof ay taqaano magaalo walba uu taga soo dhaweeyo taas waa caanimo hadduu bulshada dhex marayana bulshada laga yaqaano marka haddii adigana faa'iido aadan ku helaynin caanimana aadan ku helaynin bal iska dhaaf waa go-aan fiican marka aniga ani ahaan marka waxaan isdhihi bal badanka go-aanta qaatid aad hal mar kaamirada damin lahayd laptopkana aad isku dabooli lahayd oo waxaadna xiri lahayd bal asxaabtaada soo horfariiso waxaad dhahdaa haddii dadkaas waxay saan i dhahaan oo macnaha oo intaasoo jawaab intaasoo comment ah oo helaya intaas oo fariin qoraal mise codad li dhahaya waa nin waxaan iska dhaaf wax faa'iida kuma helaysid waxaan rabaa haddii muuqaalkan iyo aad aragtaan inaad share gareysaan haddii muuqaaladan
ولبن يوتيوب كان أدقارسيسان أنتاس أو كن مقال كان كذب كومنتيدين أنت والآخرين دونا إن شاء الله أنا أركو إن نقدان كومنتي أنا اللي لها يوني واحد كتافة كسر لعبة بس كومنتيدين أي قنعيان أو بيرجرين أي نقدان وبلان وصل لعبنا إن شاء الله هدي لكن كومنتيدين أنك أركو إن يتهاي دم لهن برسالة دي لها هاي هرقص وحياة وكلا قبصو أي تهينا ومدرس مركب حربة إن أنا قوان كي ما قاتي وحلاقي قوان كي إن كنت دقدقو مثلا عن wax ay fiicnaan aniga aan iska fududaado inuu Soomaali macna Soomaali ma ahan waxa wanaagsan qofka markuu xanaaqsan yahay iyo markuu faraxsan yahay ba inuu san go'aan qaadan oo wax balan qaadan marka waxaan rabaa anigoona waxaad sameeyeen at least waxaan rabaa in aad itustaan taageeranimadiina iyo meesha aniga aan ka gaarsiisana hadii aad dhahaysaan Yusuf Maya joog oo meesha aad tagnaa oo sida muuqaalada sameeyay oo garab taaganahay oo waxaad u baahan tahay heel iyo hoobanaan kula garab taagan share subscribe iyo comment iyo like intaba diyaar aan ahay soo laaban doonaa hadii laakiin aad dhahdaan iyo dib ma lahan go'aanka qaad ayaa saxna wala mid marka waxaan rabaa asxaabta in aan muuqaalka isku soo ekeysiyo marrab intaan ka badana muuqaalka si dheerayo because muuqaal dheer wax faa'iido u taray hadal badanna han buuxsho marka waxaan rabaa asxaabta in aan dhaho maca salaamo waxa waaye tan iyo kulada dambe iyo muuqaalkana markuu idin soo gaaro waxyaabo aad ka dhigi doontaan hadii waxyaabo aad ka dhahdaan ay noqdaan waxyaabo ani soo celiya oo ay dhahabal Yusuf hay markaan waxa waaye dad bad haysataa inta inoo balana inta waxa inoo balana xilli dambe macna saacada la joogo hadda waa 4 saac ilaa 27 daqiiqo oo habeenimo إن شاء الله هدي مقال كان يبري إن شاء الله هنجعلها بريستة ساعة إلى 4 ساعة صبحنا ما إنه كسو قاري دونا حلو كسو قاري هدي كومنتي دي نقدر كومنتي أنا جي يسوع علين كرا وأنا جي نيد إدرس كرا قلبي جي فرحت جلين كرا إذن كرا فرحت جلين كرا وقنع عن أو قان كي على يوسف قان كا وقلب الدنيا هاي إن شاء الله انتهينا بلنا هدي كومنتي دي أي نقدر كومنتي أسكت نفس مالهن قان كا صحنا مع السلامة marka inta meel lamid ah kullu waxa ka tagay asaas inuu mid kaliya iyo waqtiga dambe bye bye